dhacdadaasi waxay dhacday bishii 9/17 annagu gurmad baan ku tagnay halkaas wadajir markii aan tagnay waxa horta baan qabsaday degmada Saylac maamulka oo hogaaminaya bada saabka Saylac ninkaasi waxa uu yiri meydkan waxaad ka soo qaadeen buurama 6 saacadood oo masaafo ayaa soo socday halkiisii inaad ku aastaan bay ahayd iminka halkan aad keenteen aas oo dareera annaguna waxaan idhi dareeri mayna waxa weeyaan halkii uu ku dhintay weeyaan waa halkii ay taalay xinjirtiisu halkan aan ku aasayna baan idhi annaguna horta doodii ugu horeysay halkaas ay ka dhacday ee maartaan isku khilaafnay maamulka Saylac taasi markii ay dhamaateen ninkii aasnay waxa la yiri 3 cisho tacsiya may hor dareera la yiri dareeradii waa isku diidnay dareeradii kadib waxa ku xigtay 3 cisho tacsiya fadhiya 3 cisho tacsida ahayd intayna gaarin baa waxa dhacday dareera in la yiri oo noqdo oo ku noqdo dhukini buurmada aaseen ninkii khilaafkii halka ka dhashay waxa laga sameeyay 7 qodob oo dambiya in reerkii looga sameeyo dadkii dhibtaasi ku dhacday ee dilku ku dhacay ee walaalkood la dilay ee iyagu xakameeyay naftoodii inay argoostaan iyo in ay maaragtay dawladda ay nabadgelyadii ilaaliyaan ay iyagu naftooda isxakumay in ay naftoodii ilaaliyaan ay tacadiga joojiyaan waxa la yiri ayaa loo sameeyay 7 qodob oo dambiya oo la yiri maaragtay dhulkan Madiina u guur halkii aad ka timaadeen maamulka Saylac oo hogaaminaya bada saabka degmada Saylac ayaa kow ka ahay arrinkaasi dib weyn baa ka tirsanayna halkaasi hadaan nahay beeshaasi waxa weeyaan anagu lacagna bixin mayno cidna baabi mayno waanu isku kala soonahay baaban ciilaan nahay dhulku waa dhulka yagii sharci buu ninkaay haystay wasiirka arrimaha gudaha maamulka gobolka Selel kulli saxiixoodii baa ku yaal hadduu ninkaay dulmi wado oo la dhul aawna lahayn أو نكاسي كودنتي هن لجا قنعيو هذا صحيح وسير كريمة جودها هي كبيرها هي كبرصة وقبل كين طبعا هاي لنا سومايلان سيدنا كوسي جري مايسو سيدنا كوسي جري مايسو كونا سيسو عن مايسو وحن مركا وشيجينا أنا جو هذا الكلا يقدم بيو وحن يالينا أنا جوان وسويديننا بورت اللي بحلينا وجوجنايو كم من سلسلة جوليس عدينا صوت دورنا يسأل كان نوجو من السنة هنوجو تمادو ديار بينون هاي أنا قلنا دول خيجا يدل خيجا وين الدفاع عنا مجنا كقادا ماينو سليبان علي كورد المهنتين نقول خص بمايو وانو نقلنا أنك هي عيسنا وانو سنقلنا وهو وانو كلا دمان دونا إلهي هدون القارسية إن شاء الله تعالى يا غيبك قبل كسل خير الله سيو وصار نقضي مركي نيكي سيلع وقلي اللي دلي هل كي بيسكت سورك بوجي من دقابتي راد عادي إلا قلي رقي الشري انتي أو كهلي بوقبتي انتي غريها قادتي ايه دي الشي inay ku jiraan iyo inay intii shirku u tahay ma garanayne wuxuu sheegay isagu dadka aw xidhay inay yihiin criminal oo iyagu cadeeyeen way afkooda ka qirteen way ciise u dhan yihiin arrintii caynka ahayd annagu meydkii baan aasnay wadajir baa ku aasnay halkii lagu dilay waa halkii geeloodii awrtoodu daaqaysay وهالكي بيرتي سوهاي أوجي بيكاد بيرتو مرحوم كردت وريه وحن مغلي هذا له بيرع الصبح ولا قضانا يمك سيلع كله وان مغلي السلام عليكم ورحمة موسى سلطان بيكاد بيرتو والمام موسى سلطان يا المادر ردود وحن اللي جوهرري تاسوا عين كايو وبيرتي يجري ده ما بيرعس نكي مودية وبيرها الدجالة أي بابيين تاسيد وعينك سلمان علي كوري دولة دي أنسوجيني يسقى قدوميا كا هاي وبط وعيد استمرانكو داير ريالة كرسي جو هاي أفرني بالله قد لي
dila kursigiisuu ku badbaadiyey oo mag lagama qaadin sidii baa loo leeyahay inaguna saylici baad leedihiin oo waa madaxweyne ku xigeen madaxweynuhu baa ka sarreeya waaba ninkii leeyahay iska badbaaya wax u eg ayuu ku dhawaaqay afkiisa waxaan u yidhi maydka maxaad beerta ugu aasteen macirkaa ku aasi lahay kolkaa beertiisa ku aasi weyn waxay tidhahaa soomaalidu ku mahmaadaan ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eega waxa weeyaan kabihiisaa la eegaa waxay ka dhigan tahay taleex iyo dhumay wixii ka dhacay somalilan lagagama telinay jigjigaa lagaga teliyey waana beeshiisa ka noo soo diree dembiga naga galay taasuu ka telin lahaa daarood ka teliyey 12 aqale ciise ninka ay u ballameenna dee samaroon iyuunbaa la gudben dhexeeyuu muxuu noqonayaa dir iyo daaroodka kale ee naga hadha annaga oona isaaq ku jiri buu noqonayaa waayo isaaq dadkani weerarka waduu ku jira dadka arrinta halkaa gaadhsiiyuu ku jiraa dhexeeyaha iyaguna kaasuu noqonaya waxa weeye ciise annagaa jaara annagaa isdhalla annagaa isdillay hanaga dhex baxo dawladda somalilan isku sheegaysa ee isku dirka warqaddii iyadu ay goysay ee tii horena loo keenay dawladii hore ka hadhay lagu dilay ee weliba ka guura lee maanta askar dhigatay ay u fadhido laba nin oo baabir celiyo taaganna ma arki karuu yidhi koore ninka koorta sitee laynoo soo diray wuxuu yidhi oo hadalladiisii ka mid ahaa oonaan been ka sheegayn wuxuu yidhi samaroon awalba waa la gawrici jiray mag ma qaadan jirine kursigiisa unbuu ilaashan jiray waaba mid kale ata buu yidhi maanta waxaa laynaga dilay ninka kursiga sayliciisiista buu yidhi ninkaasuu isagoo mas-uul oo la soo diray afkiisuu kaga dhawaaqay waxa weeyaan erguu noo keeno oo ergaan hay buu yidhi oo ciisaha uu u tegey wuxuu yidhi ninkiini 12 aqale ciisaa dishay magtiina waan iniiga sidaa buu yidhi oo way ogolyihin waa markii hore 12 aqale ciise ninka ay dishay u tashatay haddii mag laga qaadana ma keliyaatay ma baxo 12 aqale ciise ciddii la dhignaydna maanta halkan ma joogtaan ee ciddii la dhignayd ee u dhigmaysay baan doonanaynaa baan nidhi ma dhacda buu yidhi habeenkii hore saa baan ku kala barinay subaxii dambe dharaartii uu noqday wixii madax ahaa ee samaroon ahaa ee halkii joogay uu ka tegey hadday wasiirkii ahayd la socday taliyaha gaaska kii sacad maxaa ahayd saylac xukumay guddoomiyaha saylac ahaa intaba uu ka tegay oo isagiiyo wasiirkii yaraa ee mamaasan iyo ninkii waa wasiir ku-xigeen lalahaa iyaa socday saddexdoodaasoo ciise ay u tegeenoo way meel bay wax la soo dhigeenoo waxay yidhaaheen waar 12 aqale ciisaa dishay ninka inaga socon maysa meel hoose geeya iyay yidhaaheen oo ila soo taliyeen subaxii dambe wuxuu noo keenay warkii rugtii baan soo helay halkii ninka dishay baan soo helay waa raacaw magtii baad qaadanaysiin buuri cidda dishay iyo 12 aqal inay u dhan tahayna waftiga oo dhan buu ciise afkiisa uga sheegay ciddii hore ee mas-uuliyiinta gobolkaa og in 12 aqal ay dileen waa qorshe isagu uu ka soo shaqeeyey ninka dhexeeyahee la soo diray waanu isku afgaran weyne oo wasadihii shalay un erga noo keenay baan idhi tan labaad maxay tahay taabaad ku qasbatihiin oo ninkiina dilay baan ini hayaa buuri ee iminka qaata xoolaha ma noqotaan nidhi dambiile waa annaka sidii ku noqonno waa ka iminka soo qabtay yidhi odayaasha shanta ahee
maaragtay wixii aan idhi amarkii dawladda yayba diideene iisoo xidhxidha buuri waxaan leenahay xadhigu dadka ma dilo haddii dee wax naga xoog roon la arko oo lana xidhana dee sharci unbaa kulley lanoo baadhi doonaaye goorre wax dembiyon ka gallay iyo dadaan ka laynay midna ma jirto meesha way dhacdaa waa la tegaa wasiirraa tegaa waa la tacsiyeeyaa tacsiyaa la geeyaa waa loo duceeyaa waa lala hadlaa waa la samirsiiyaa kadib wixii ku dhacay baa laga garnaqaa waxaa lagu qanciyaa wixii ummadda lagu qancin jiray wasiirrada yimiday nin dhulmahanta ah oo wasaaradda macdabta iyo biyaha ka shaqeeya wasiirka ah oo isagoo gacantooda hargeysuba haraadlaayey oo xilkiisii wasaaradeed gudan waayey ayaa si wuxuu nabadoon yahay loo soo diray dadka waa nin og bariga waxa ka dhacay oo doonaya inuu galbeedkana taa ka dhigo markii u horraysay wuxuu la shir gaara la qaatay maamulkii gobolka oo halkii aanu deganayn meel ka fog ayuu kula qaatay markii ku xigtana nimankii wax dilay buu shir la qaatay annagu waxaanu ka sugaynay inuu fadhiisto ouna tacseedeeyo fili maayo da inuu bannaan ka yimid dee dawladdu kolley tacsey u soo dhiibtay tacsiina u la noqday oo halkii loogu talama gaashin yacni khayr mas-uulnimadiisa tallaabooyinka uu nala soo galay baa wax la yaab laa waa ninkaa la idhahdo maxay koore salaabaan cali koore dhulmahante waa nin aan dhaqanka iyo nidaamka aan midnaba garanayn waxaa la yidhi bal ka warrama ninka geela lagu aamini waayo haddii adhiga loo diro adhig waa wax baasan de geelaba lagu ninka wasaaraddiisii laga wiilayo hargeysaha raad ku laayey ee tolkii noogu faanayo inuu 150 iska dila ku xarragoonaya ee annaga nala yaaban geerida nagu dhacdo inaan waxba ahayn kaasi nin xilka soo olan usoo dira maa waftigan isaga hogaaminayay ninkaasi wuxuu yidhi oo uu ku hadlay waxyaalo aanaan nagu habboonayn tacsiyihiinna muu tacsiyeyna uu nala dhaafay dhibaatada maanta kadib dhacda mas-uul waxa ka allabadaa wasiir annagu intii deganinna waa la barakiciyey beertiina waa la baabiyey odayaashiina waa la ugaarsaday buurtaa la naga saaray maantadan maanta ah waxaa nagu wareegaya amarkii wasiirka gaashaandhigu bixiyey baa nagu wareegayo buur kasta iyo luuq kastaba qabaalada laga soo geliyo waxa lagu caysanayaa baabir cili arrintaasi barakac bay sababtay arrintaasina bugtaan bay sababtay arrintaasi waxaa dadka afkiisa ka soo baxaya inay dhacaan bay sababtay nimankaa weliba waxay ku andacoonayaan amarkaa inaanu nidhaahno ma qaadan jirin awalba madaxnimaad siisan jirteen annaga dawladda nagu soo amartay ku andacoonayaan yacni siday dawladda iyo shacbiga baabir cili isugu dhici lahaayeen ayay nimankaasi ka shaqeeyeen waa khayro mas-uuliyiin maalintii horreysana soo jirtaankiisa gara waxbaan ku idhi waa dhulkan ma biyaa laga waayey nabad baa laga waayey dhulka biya laga meel nabad baa laga waayey markaa nin biyo aqoon wala looma baahno wayna dhacday tii kaayaga qudhiisa waxaan ku idhi reega wasiirka xaggee ka soo jeeda waa dhulka maxanuunaa ka dilaacay nabadlaan baa ka dilaacdee awa dadkii ay khusaysay inay dhulka nabadeeyaan wasiiradii kartida u lahaa ee sharciga yaqaan ee aqoonta u lahay waxaan oo kale aan ka hadlay ee wixii wanaagsana ka hadlayay annagu waxaanu lahayn oo mar walba ku hadlaynay oo lanagu xidhayaa dawladdu gacan ku-dhiiglaha soo qabato gacan ku-dhiiglaha markii lasoo qabto wixii wada hadala waan furaynaa intaa keliyaan lahayn xaq baanu lahayn marka gacan ku-dhiigla la qabto oo dembiilihii lasoo qabto ee howlgalkii lasoo afjaro hadal baa yimaada dembiiliha furunka la cunaya ayay leeyihiin waxaan idinka soo helaynaa mag baad qaadanaysaa sandulla waan sankaa naga gelinaynaa mag iyaguna la jooga waxa kaloo uu ku taliyey ninkaasi war dee maxay baa tihiine ka samra oo iskaga taga inanka maydkiisa oo iskaga tago samra waanu ka samri karnaa laakiin amarkiisa kaga samri mayno waxa meesha ka dhacay dhibaato labadaa wasiir ay wataan oo ilaa hadda annaga lagu baadi goobayo oo lanoogu bedelay abaalka yagii iyo samirka yagii dembi baa lanoogu bedelay wixii aan intaa iyo intaa nabad hor joognay
nin walaalkii la dilay oo galiilyoonaya oo ninkii dilay halkan joogo oo qabrigii ka dul ooya ayaan gamcaha haynay shalay buu ka furay xadhigaanu ku haynayoo intuu beertii ka baabi'iyey oo ciidan dejiyey oo raashinkii la wareegay oo qalabkii la wareegay ayaa inamadana budow kaga saaray halkii amarkaa wasiirka gaashaandhigga iskale u malayn maayo sidaa inuu isagu beerta ku qaadanayo fili maayo laakiin waa nin mas-uuliyaddiisii iyo waajibaadkiisii gabay weeye anuu dawladda waxaan u sheegayaa annagu dembi maanaan gelin qaranna kamahana hor iman masabid iyo wanjal baa lagu sameeyey dawladda annagaa leh waa dawladdayadii kama soo hor jeedno shuruucaheeda waanu hoggaansannahay laakiin inamada yaryar ee la noo soo diray niman wanaagsan maaha niman annaga iyo dawladda na kala dhex jooga weeye hawshii dawladda soo dirta uma socdaana kontaraad kalay galeen way caddaan doontaa taas nimanka la noqday tacsiyihii ay u sideen waarashada ninku ka dhintay nimanka ku xidhxidhay beertii maydkoodu yaallay ku gubdeeyey nimankii jufadii waarashadu ka dhintay nimanka dagaalka ku qaaday waaranka u gooyey in odayaashii nabadda hor joogay la soo xidho arrintaa waxaa iska kaashanaya ninkaa koore iyo wasiirkaa gaashaandhigga iyo ninka bara saabka gobolka oo in badan ka xishoonaynin oo inta badan halkaa bahar jiqisha kaga jooga halkan inta uu gobolka joogo maalin aanu bahabar celi jiqishaa kaga joogin oo xuquuqdeeda duubsiinin ma jirto wax wallow sameeyo waanu ka xishoonayey waa inankaagii baan lahaa maantana wuxuu yidhi meel kastood ku aragtaan hogaamiye kooxeedkaa soo qabta amarkaas u baxshay taasi waa waajibaad laakiin waa nasiib darro maanta inuu waxaa ku sameeyo aniga oo gacanta kaga haya dadka ouna gobolkaa isagu nabad ku dhex seexanayey oon labada beelood anigu dhex fadhiyey oon walba raaligelintiisa sabiis halkaa ku waday maanta inu dhahdo soo qabta waa nasiib darro weeyaan waa xaggiisa ka imanaya weyan waa qaldhabasho waxaan ku soo koobaya hadalka war dee dadka halkan in lagu ihaanaysanayo ee dhulkoodii loo diidayo ee dhiiggoodii iska badbaaya laleeyahay qiimo ma lihine ee laleeyahay ma deganaanaysiin ee odayaashoodii sharaftoodii la ugaarsanayo dadkaasi dad tol ka dhashay weeyaan ninkay ka dhasheen wuu garanayaa anuu odhan maayo hebel iyo hebel laakiin ninkay ka dhasheen eey la dhasheen ee dhaxalkooda lahaa ee sida 12 la sheegaya ninka dilkiisa u midowday ula mid ahaa way arkayaan waanu u sheegaynaa waxaa kaloo u sheegana war dadka la barakiciyey dadkii maaragtay qaraabadooda adduunyada joogay ha u soo gurmadaano hadday beer leena waa la barakiciyey hadday qudan leena gacmaha laga qabtay deegaankiina waa la barakiciyey odayaashoodiina dambiilayaal baa lagu tilmaamay waxaan rabnaa waynu tegaynaa hargeysa waanu tegaynaa madaxweynaha muuse biixi ah haddii kiiskaa iyo dembigaa annaga lanagu nagu caddaan waayo waxaan ka codsanayaa afartaa wasiir abaalkoodu shaqadood ka erida maaha waa xeer inqaabeed dembigay galeen baanu caddaynaynaa